love you my baby, I love you my baby, love you my baby. fadlan haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la dhaho Justic wuxuu u imaaday duule yar oo aad u horumarsan sidoo kalena aad u qurxan. Justic wuxuu doonayay inta uu shaqada fasax ka yahay inuu magaaladan ku dalxiiso. kadib wuxuu imaaday magaalada meel boxing ku taalo ama meel jimmy oo lagu almiiteeyo. run ahaantii Justic markii uu meeshii imaaday meeshii kama helin sababtoo ah meesha waxay ahayd meel aad u wasaqaysan sidoo kale meesha dad badan ma joogin waxaa joogay 2 qof oo kaliya. Justic meesha kama helin sababtoo ah meel aad u wasaqaysan haddana dad badan joogin wuu ka caajisay kadib wuu iskaga soo baxay. kadib locationka ayuu wuxuu ka raadiyay gym kale inuu meesha ku yaalo. nasiib xumo hal gym ayaa meesha ku yaalay gymkaasina wuxuu ahaa meeshaas oo wasaqaysan. kadib Justic wuxuu go'aansaday inuu meeshan iskaga almiiteeyo meeshanna waqtigiisa ku qaato. laakiin arrinka oo Justic la yaabo ayaa wuxuu ahaa boxka fiirka lagu baranayay mid aad iyo aad u jilcan oo qof bini'aadan oo kale loo maleeyo. Justic arrinka kale uu la yaabnaa ayaa waxay ahayd ninka gymka iska lahaa wax almiitaha ama training ma siinaynin. Justic keligiis ayaa iska almiiteynayay bir allaale birtoo rabana uu iska qaaday. maalinkii labaad asigoo Justic meesha almiitada u soo socdo ayuu wuxuu ka arkay meesha almiitada oo booliis joogo. ninka meesha almiitada lahayna wareys laga qaaday. kadib booliiskii ayuu la hadlay wuxuuna weydiiyey waxa ka qaldan meesha. booliiskii waxay ugu jawaabeen waxaa la leeyahay dhowr qofood marka tuulada ayaan ka raadinaynaa ayay ku dhaheen booliiskii. Justic arrinkaas aad ayuu ugu naxay laakiin muhiimad dheeraad ma sii siinin. hore ayuu jiimkiisa u tagay almiitadiisa ayuuna iska galay. maalinkaas wuu iska soo almiiteeyey. maalinkii labaad ayuu haddana imaaday. maalinkii labaad markuu imaanayay wuxuu arkay meeshii oo dad badan buuxo sidoo kale meesha waxaa taagnaa gaariga booliiska. arrinka aadka ugu naxay Justic waxay ahayd macallinkii gymka iska lahaa asigoo xabsiga loo sii wada ayuu arkay. kadib wuxuu siiyay Justic meesha almiitada iska gal. albaabkii ayaa booliiskii ka celiyay. kadib meesha ayuu wuxuu ku arkay arrin aad iyo aad u argagax leh. wuxuu arkay bokosyadii uu fiirka ku baran jiray in ay dad bini'aadan ku jireen. box kastana wuxuu ogaaday inuu hal qof ku jiray dad bini'aadanna inuu ku almiitay jira ayuu ogaaday Justic. arrinkaasna aad iyo aad ayuu uga naxay. sidoo kale booliisku waxay sheegeen ninkan inuu raadin jiray dadka meesha uga cayilan kadibna uu dili jiray meesha boxkana uu geli jiray. kadib Justic booliiskii ayaa wateen waxayna u sheegeen waxa uu maalin kasta ku tababari jiray inay ahaayeen qof bini'aadan ah oo dhintay. arrinkaas aad iyo aad ayuu uga naxay Justic. labalabana way ku qabatay. kadib Justic wuxuu go'aansaday inuu tuuladaas dham si degdeg ah ugu tago wuxuuna go'aansaday mar dambe inuu halkan kusoo laaban. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddii aad hore noola joogtana videoga like garee.